soo dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka intaan u gudbin wararka bariga dhexe oo xaaladdu maanta cirka ay ku laaran tahay isla markaasna ay soo xoogaysanayaan ifafaalayaasha dagaalku inuu ballaaranayo oo dagaal dhanka dhulkana oo dhici karo waxaan ku hormaraynaa xagga Ukraine iyo dagaalka Ruushka u dhaxeeya ugu yaraan 25 qof oo ay ku jiraan 6 caruur ah ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen weerar ciidamada Ruushka ku qaadeen magaalada Zaporizhia ee koonfurta Ukraine sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine weerarka ayaa yimid xilli labada dal ay sii wadaan duqeymaha ay isdhaafsanayaan ee ka soconaya gudaha dalalkooda gudoomiyaha dhanka militariga ee gobolka Zaporizhia Ivan Fedorov ayaa sheegay in ciidamada Ruushka magaalada ay ku garaaceen 5 gantaal oo ah nooca lahago kuwaasi oo waxyeello u geystay guryo ay dad shacib degan yihiin iyo xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay inkastoo aan lahayn cadeymo arrinkaasi muujinaya dhinaca kale gudaha Ruushka warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuriyaha lahayn oo Ukraine ay dirtay ay beegsadeen baqaar ku yaal meel u dhow magaalada St Petersburg taas oo sababtay in dab xooggan iyo qiiq cirka isku shareero gudoomiyaha gobolka Leningrad Alexander Drozdenko ayaa sheegay in ugu yaraan 50 dayuuradood oo ah droniska ay weerar ku qaadeen gobolka shirkadda ganacsiga ee dhanka internetka ee Wild Paris oo ah tan ugu weyn ee Ruushka isla markaasna la barbar dhigo shirkadda Amazon ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah u hakisay shaqadii laba baqaar oo ay ku lahayd magaalada iyadoo aan faahfaahin ka bixin sababta madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa horay ugu eedeeyay shirkadda Wild Paris inay sahay u gudbiso ciidamada Ruushka weerarkan cusub ayaa yimid 4 maalmood kadib markii laba baqaar oo kale oo shirkadda ay ku lahayd agagaarka Moscow la weeraray halkaasi oo ay ku dhinteen 8 shaqaale ah dabkuna waxyeello weyn uu geystay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa haatan galay sanadkiisii afraad iyadoo gobolka Zaporizhia weli uu ka mid yahay 4 gobol ee Ruushka uu ku dhawaaqay in uu la wareegay sanadkii 2022 inkastoo si buuxda uusan u wada maamulin dhammaan deegaanada uu ka kooban yahay gobolkaasi wahagaag colaadda Ukraine aynu ka soo wareegno oo haatan aynu eegno dhanka gobolka bariga dhexe halkaasi oo xaaladdu cirka ay ku shareeran tahay Iran ayaa lagu soo warramayaa inay xoojisay weerarada isla markaasna sawaariikhda dhinac kasta ay u sayrinayso wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha iyo weerarada Iran ay fulisay haddii aynu jaleecno ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa shaaciyay in ay beegsadeen saldhigga ciidamada cirka ee Ali al-Salim ee dalka Kuwait weerarkan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in uu yimid waxa yar kadib markii ciidamada qalabka sida ee Iran ay sheegeen in tiro diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ay ku weerareen saldhigga Doha Arvijan iyo Al-Udayri ee ku yaala Kuwait war kale oo arrimahan la xiriira ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa sidoo kale sheegay inay beegsadeen xarun xog kaydin oo shirkadda tiknoolajiyadda Mareykanka ee Amazon ay ku leedahay dalka Bahrain sida ay baahisay warbaahinta dawladda Iran ciidamada IRGC ayaa war ay ku baahiyeen telefishinka dawladda waxay ku sheegeen in waa sida bayaanka lagu yiri ay beegsadeen oo ay burburiyeen xarunta xogta sirdoonka ee shirkadda Mareykanka ee Amazon taas oo door weyn ka ciyaarta ururinta xogta loogu adeego ciidamada Mareykanka ilaa iyo hadda shirkadda Amazon iyo mas'uuliyiinta Bahrain midkoodna kama aysan hadlin sheegashada Iran ciidamada IRGC ayaa sidoo kale arbacadii waxay sheegeen in ay beegsadeen isla xaruntani
war kale oo Iiraan la xiriira wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi ayaa farta ku fiiqay in Tehran ay kula xisaabtami doonto dal kasta oo ka qayb qaata iskaashi la sameeya ama taageera weerarada Mareykanka isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisu xaq u leeyahay inuu iska difaaco tilaabooyinkaasi. Abbas Araghchi oo khudbad ka jeediyay dalka Kyrgyzstan halkaasi oo uu kaga qayb galaya maanta shirka ururka iskaashiga Shanghai ayaa intaasi ku daray in Iiraan ay xaq u leedahay inay qaado dhammaan tallaabooyinka lagaba maarmaanka u ah isdifaaca. Araghchi ayaa sidoo kale tilmaamay hanjabaadaha ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump gaar ahaan tii ugu dambeysay ee ahayd in hantida Iiraan ee dibadda lagu xayiray gaar ahaan gudaha Mareykanka loo adeegsan doono magdhowga qasaaraha maraakiibta ka soo gaara weerarada iyo xiisadahan ka aloosan gacanka Hormuz. Wasiirka ayaa tibaaxay in la wareegidda hantida dal kale si loogu bixiyo dacwooyin mustaqbalka aysan wax xiriir la lahayn arrintan, waxaana uu sheegay arrinkaasi inuu abuurayo tusaale halis ah oo xaaladda uga sii daraya. war kale oo Iiraan ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee waddanka Iiraan ayaa ku dhawaaqday in tirada dadka ku dhintay weeraradii ugu dambeeyay ee Mareykanku uu ku qaaday dalkaasi ay gaartay 55 qof. dhaawaca ayaa wuxuu marayaa 645 qof sida ay baahisay wakaaladda wararka Faris ee Iiraan laga leeyahay. xagga Israa'iil, saraakiisha ugu sarreysa amniga Israa'iil ayaa ka digay in Israa'iil mar kale dagaal ay la gasho Iiraan, iyagoo su'aal geliyey faa'iidada uu dagaalkaasi u leeyahay Israa'iil iyo inuu u adeegayo danaha siyaasadeed ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. warbaahinta Israa'iil ayaa maanta baahisay in hoggaanka ciidamada sirdoonka Ammaan, sirdoonka Mossad iyo sirdoonka Shin Bet ay rumaysan yihiin in dagaal cusub uu keeni karo qasaare dhaqaale oo aad u fara badan, weerar gantaalaha oo cusub oo lagu soo qaaday Israa'iil iyo halis soo wajahda ciidamada iyadoo aan la xaqiijin karin in la burburin karo barnaamijka nuclearka Iiraan ama xitaa aan la awoodi karin in Iiraan dagaalka lagaga guulaysto. saraakiisha ayaa sidoo kale waxay ku nuuxnuuxsadeen in Israa'iil aysan awood u lahayn in ay burburiso qaar ka mid ah xarumaha nuclearka ee dhulka hoostiisa ku yaal, halka ay ka digeen in dagaal cusub uu khatar weyn gelin karo ammaanka Israa'iil. waa tahay warkaasna intaa aynu kaga gudubno, bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. hogaamiyihii xilka laga qaaday ee xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga Özgür Özil ayaa maanta ku dhawaaqay aasaaska xisbi siyaasadeed oo cusub oo la sheegay in uu kula tartami doono madaxweyne Recep Tayyip Erdogan doorashada kadib bilo ay maxkamaddu xilka ka qaaday go'aan ay taageerayaashiisu ku tilmaameen mid siyaasadaysan oo lagu weeqayo mucaaradka. Özil iyo 90 xildhibaan oo kale ayaa si rasmi ah isaga casilay xisbiga Jamhuuriga Dadka ee CHP, kadibna waxay wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan geliyeen xisbi cusub oo loogu magac diray xisbiga cusub. bishii May, maxkamadda racfaan ayaa laashay doorashadii shirweynihii CHP ee 2023, taasi oo dib ugu celisay hoggaanka xisbiga Kemal Kılıçdaroğlu. arrintaasi oo dhalisay caro xooggan oo ka timid taageerayaasha Özil. dowladda waddanka Spain ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo heer qaran ah kadib markii dabab waaweyn ay ka kaceen kaymaha dalkaasi, kuwaasi oo halis geliyey deegaano ku dhow magaalada caasimadda ee Madrid iyo gobollada deriska la ah, gaar ahaan gobolka Avila, taas oo keentay in 10,000 oo qof guryahoodii ay ka barakacaan, iyadoo debdemisyaduna ay weli la tacaalayaan si loo xakameeyo dabka. wasaaradda arrimaha gudaha ee Spain ayaa sheegtay in go'aanka lagu dhawaaqay gaar ahaan xaaladda degdega la qaatay sababo la xiriira dabab badan oo isku markacay, xaaladda cimilada oo aan wanaagsanayn iyo baahida loo qabo in la isugu geeyo awoodaha iyo agabka hay'adaha kala duwan ee dowladda sidii dabkaasi loo debin lahaa, isla markaasna loo ilaalin lahaa badqabka dadka shicibka ah. waa tahay warkaasna
amaytaa aynu kaga gudubna wararkaasi kooban waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha gobolka bariga dhexe ee soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay iyo xubintii falaqaynta oo aan idinkugu hayno maraykanku wuxuu isku diyaarinayaa duulaan dhanka dhulka ah iiraan oo heegan gashay iyo khabiir arrimaha militariga oo ka hadlaya xaaladaha iyo qorshayaasha labada dhinac u degsan iyo waxaa imika muuqda ee muujinaya dagaal dhanka dhulka inuu dhici karo intaana u gudbin dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale aynu ku hakanno qadar xayisiina haatan aynu eegno wararka imika ka soo kordhaya xaaladaha colaadeed ee gobolka bariga dhexe gaar ahaan weeraro ka dhacay waqooyiga waddankaasi ciraaq halkaasi oo la sheegayo in telefishinka aljazeera uu tabinayo in qaraxyo laga maqlay agagaarka garoonka dayuuradaha erbil iyo deegaanada ku yaala galbeedka magaaladaasi xilli nidaamyada difaaca cirku ay hawl galeen wakaaladda wararka ee AP ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in 7 qarax laga maqlay meel u dhow saldhig ciidan oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee magaalada Erbil ee waqooyiga waddanka Ciraaq. Iiraan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay beegsanaysay goobo ku yaal waddankaasi Ciraaq gaar ahaan dhanka Kurdistan sabab la xiriira iyadoo aaminsan halkaasi in ay ka howlgalayaan kooxaha Kurdiyiinta ee mucaaradka ku ah. dhanka kale dowladda waddanka Bahrain ayaa war ay ciidankeeda soo saareen waxay ku sheegeen in ay ka hortageen weeraro diyaaradaha droniska loo adeegsaday oo Iiraan ay ku soo qaaday waddankooda waxaana tani ay ku soo beegmaysaa iyadoo Iiraan goor sii horreysay ay sheegtay in ay beegsatay saldhigyo military oo ku yaala waddankaasi Bahrain. wararka kale hadda soo dhacaya waxaa ka mid ah Pakistan oo ku baaqaysa in la isxakameeyo isla markaasna laga waantoobo dagaalkan in uu xoogaysto isla markaasna gobolka uu ku fido. Waagaag haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falaqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan qobarada arrimaha militariga dagaalka istiraatiijiyadda iyo ciidanka. sidoo kale waxaan warbixintan ku eegnaa macluumaadka warbaahintu ay daabacdo ama ay tabiso. si gaar ah xubintan maanta waxaynu ugu gorfaynaynaa ma dhaba in Mareykanku isku diyaarinayo duulaan dhanka dhulka ah ee uu ku qaado waddanka Iiraan. maxay yihiin ifafaalayaasha muuqda ee muujinaya dagaalkaasi inuu dhow yahay. dhanka Iiraan waxaa lagu soo warramayaa diyaargarow xooggan inuu ka jiro halkaasi iyadoo ciidamo fara badanna la diyaariyey. haddaba xubintan si gaar ah waxaynu u eegaynaa qabiir arrimaha militariga oo ka faalloonaya macluumaadyada imika soo baxay iyo xogaha imika sida ay yihiin. dagaalka u dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka ayaa maraya marxaladii ugu khatarta badnayd ee sanado badan iyadoo xaaladdu ay ka gudubtay iska horimaadyo xadidan una gudubtay dagaal istiraatiiji ah. waxaa intaasi dheer Iiraan ayaa waxay filaysaa suurtagalnimada in Mareykanku uu sameeyo duulaan dhanka dhulka ah gaar ahaan inuu ka sameeyo 4 jasiiradood oo ku yaala Hormuz kuwaasi oo kala ah Abu Musa, Tunbu al-Kubra, Tunbu al-Suqra iyo jasiiradda Kharij sida ay sheegeen kormeerayaasha dhanka ciidanka Iiraan. wararka ka imaanaya Iiraan ayaa sidoo kale tilmaamaya in ay jiraan qiyaaso iyo dhaqdhaqaaqyo military oo Iiraan dhankeeda ka socda oo la xiriira suurtagalnimada in ciidamada Mareykanku ay sameeyaan duulaan dhanka dhulka ah gaar ahaan 4 jasiiradood ee Iiraan leedahay inta lagu jiro marxaladaha soo socda ee dagaalka iyadoo tani ku qasbayso Iiraan in ay dib u daabusho ciidankeeda geysana deegaanadaasi goobahaasi oo la aaminsan yahay in Mareykanku uu aqoonsaday bartilmaameedyo loogu talagalay weerar dhanka dhulka ah. laakiin marka dhinaca militariga laga eego ikhtiyaarkan ah in ciidamada Mareykanku duulaan dhanka dhulka ay ku galaan jasiiradahaasi waa mid aad u yar sida uu qabo qabiirka arrimaha militariga Colonel Nidal Abu Zaid wuxuu carabka ku adkeeyay in dabeecadaha dhulka buuraleyda ah ee Iiraan ay ka dhigayso howlgal kasta oo dhulka ah mid adag isagoo Iiraan ku tilmaamay qalcad dabiici ah. waxaa intaasi uu ku daray in ballaarka xuduudaha iyo kala duwanaanshaha dhulka aysan dan ugu jirin ciidan kasta oo duulaan ah. Abu Zaid oo ka qayb qaadanayay faraqayn uu sameeyay telefishinka Al Jazeera
ayaa waxa uu sheegay in Maraykanku uu og yahay in gelitaanka gudaha Iiraan oo si qoto dheer u galo inay la macno tahay isku horimaad toos ah oo lala galo dhul juqraafi ahaan cadowtinimo xambaarsan iyo ciidamada dhulka ee Iiraan gaar ahaan kuwa Baasiij kuwaasi oo isku diyaarinayay 10 sano maalintan oo kale isla markaasna sugayay duulaanka dhanka dhulka oo ay ku lug leeyihiin kumaan kun oo askari iyo taangiyo ayaa weli wuxuu yahay ikhtiyaar aan u badnayn qorshaha militariga ee Maraykanka muuqaalo kale oo suurtagal ah Colonel Nidal Abu Zaid wuxuu soo jeedinayaa in ay tahay arrimaha ugu macquulsan ikhtiyaarka duulaanka dhanka dhulka oo xadidan kaasi oo wata taageero oo macnaheedu uu yahay in dhulka laga taageerayo ciidamada iyo maleeshiyaadka dhaqaaqyada goosatada Iiraaniyiinta sida uu sheegay qabiirku ikhtiyaarkaasi wuxuu ka kooban yahay dhowr wejiga koowaad furitaanka marina dhanka dhulka ah gaar ahaan geeska koonfurta galbeed ee u dhow xadka Pakistan qodobka labaad taageerida dhaqaaqyada goosadka sida kooxda Jaysh al-Aadil ama ciidanka cadaaladda oo ah koox ka dagaalanta gobolka Sistan iyo Baluchistan qodobka saddexaad istiraatiijiyadda wakiilada maxalliga ah halkii askarta Maraykanku ay ka dagaalami lahaayeen buuraha halista ah ee Iiraan Washington waxay bixin doontaa taageero dagaal iyadoo adeegsanaysa duqeymaha xagga cirka gaar ahaan dayuuradaha dagaalka sida B1 iyo maraakiibta dagaalka waxaana sidoo kale ay bixinaysaa macluumaad sirdoon oo la siiyo kooxaha hubaysan ee mucaaradka kuwaasi oo fulin kara howlgalka dhulka iyagoo hoosna ciidamada Iiraan ka socda kana taageeraya dhanka dhulka kooxahan goosatada ah aragtida labada dhinac si loo fahmo xaaladda iyadoo lagu salaynayo qiimeynta militariga iyo hadallada Iiraan iyo Washington ka soo yeeraya waxaa cad in xaaladda hadda jirta ay u muuqanayso laba arrimood inay ku soo biyashaban karto dhanka Maraykanka mabda'a isugeynta awoodda dagaalka wuxuu ku tiirsan yahay qorshe isku dhafan oo ballaaran oo ka kooban diyaarado maraakiib dagaal iyo taageerada saadka ee hawada badda iyo dhinaca sahayda iyadoo howlgalkaasi ay ka qayb qaadanayaan maraakiibta duqeymaha fulisa ee Maraykanka gaar ahaan Arleigh Burke iyo Tyson iyo maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka qabiirku wuxuu sheegayaa in ujeedadu ay tahay in la abuuro xaalad gebi ahaanba curyaamisa awoodaha Iiraan iyadoo loo marayo duqeymo istiraatiiji ah oo u gogol xaaraya marinada dhulka ee xadidan duqeyntaasi oo sida uu sheegay qabiirku soconaysa tan iyo inta ciidamada dhanka dhulka ay ka gelayaan waxaana markaasi uu sheegay in tani markii colaadan ay bilaabatay duqeymaha socda ay yihiin kuwa looga gogol xaarayo wejiga koowaad ee dagaalka wuxuu tilmaamay qabiirku in isbeddelka ugu weyn ee istiraatiijiyadda militariga Maraykanku uu yahay adeegsiga diyaaradda B1 oo lagu kordhiyay duqeymaha diyaaradahaasina waxaa la sheegayaa inay fuliyaan duqeymo fogaan dheer oo hawlo badanna qaban kara Abu Zaid wuxuu ku tilmaamay diyaaradda mid ka dheeraysa guuxeeda isla markaasna leh awood burburin oo gaar ah iyo awood ay ku qaadi karto ilaa iyo 34,000 oo tan oo walxa qarxa ah oo ay ku jiraan gantaalada JDAM bambooyinka culus ee GPU oo lagu burburiyo dhufaysyada iyo gantaalada kuriska oo diyaaraddu ay rido qabiirka arrimaha militariga wuxuu ku adkaysanayaa in soo gelitaanka dagaalka ee diyaaraddan B1 ay ka dhigan tahay in bartilmaameedyada Maraykanka aysan mar dambe ahayn kuwa xeeladaysan ama xadidan balse ay u gudbeen marxaladda lagu baagsanayo agabka istiraatiijiga ah ee waaweyn ee Iiraan taas oo muujinaysa buu yiri rabitaanka Washington ee ah in burbur baaxad weyn ay u geysato awoodda muhiimka ah ee Iiraan haddii dagaalku si buuxda uu u bilowdo dhanka Iiraan mabda'a jawaabta isku midka ah qabiirku wuxuu sheegayaa Iiraan in ay mar kale ku celinayso istiraatiijiyadda jawaabta ah ee ah in xarun la weeraro loogu jawaabo xarun la weeraro haddii Washington fikirka ah dagaal dhanka dhulka ay gasho isla markaasna ay isku daydo inay qabsato jasiiradda Kharij ciidamada Iiraan waxay samayn doonaan in ay weeraraan
dhammaanba goobaha shidaalka iyo tabarta ee gobolka taas oo dagaalka u bedeli karta dagaal tamareed oo caalami ah isla markaasna cirka isku shareeri doono qiimaha shidaalka oona ka gudbi doono $100 Israa'iil oo safka hore ku jirta marka laga hadlayo doorka Israa'iil ee dagaalka Cornel Nidal Abu Zaid wuxuu aaminsan yahay in Israa'iil ay si buuxda u noqotay saldhig military oo si adag loo difaaco oo ku yaala gobolka maadaama lagu ilaalinayo nidaamyada difaaca cirka ee ugu casrisan oo ay ku jiraan nidaamka HITS, David Sling, Iron Dome iyo sidoo kale nidaamka Mareykanka difaaca ee THAAD oo la dhigay saxraha naqab Abu Zaid wuxuu tilmaamay in qorshaha military ee Mareykanka inkastoo uu u adeegsanayo soo gelitaanka Israa'iil ee dagaalka aalad cadaadis dhanka siyaasadda ah oo lagu riixayo Iiraan dhanka wada xaajoodka inay timaado haddana Israa'iil waxay ka gaabsanaysaa inay ku lug yeelato dagaalka si toos ah sababta ayuu ku sheegay mabda'a dagaal ee Israa'iil oo ah in wixii xoog lagu xallin karo haddii aan lagu xallin xoogga la sii adkeeyo taas oo ka macno ah in awoodda Israa'iil oo dhan hal mar ay isticmaali karto si ay iskugu daydo inay ka guulaysato Iiraan laakiin qabiilku wuxuu leeyahay Mareykanku wuxuu ka qabaa walwal arrinkaasi gaar ahaan in Israa'iil ay isticmaasho dhammaanba hubkeeda dagaalka oo markaasna ay soo foosarto rasaas yari iyadoo taana keeni karto go'aano military oo degdeg ah isla markaasna keeni karta xitaa dagaalku inuu noqdo mid aan la xakameyn karin si kastaba ha ahaatee Abu Zaid wuxuu ku adkaysanayaa in dhinaca Israa'iil dagaalkan si weyn ay isugu diyaariyeen isla markaasna safka hore ee dagaalka in ay galaan ay ku xiran tahay iyagoo sugaya iftiinka cagaaran ama ogolaanshaha Washington ee ku aadan dagaalka inay ku soo biiraan laakiin qabiilku wuxuu ku tilmaamay qalad weyn inay gashay Iiraan gaar ahaan inaysan ka hortagin ama faragelin ku sameyn ama aysan carqaladayn diyaar garowga dagaal ee Israa'iil arrintaasi uu sheegay inay tahay qalad weyn oo dhanka Israa'iil diyaar garowgooda la xiriira oo Iiraan ka yimid oo hagaag wararka ugu dambeeya ee haatan soo dhacaya waxaa ka mid ah in la sheegayo Mareykanka duqeymihii ugu dambeeyay ee uu qaaday inuu ku baagsaday xarun ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan oo ku taal badda Caspian waana markii ugu horeysay ee duqeymuhu dhankaas ay gaaraan wixii arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena ugu dambeeya iyo kuwa ugu soo horeeya ayaad ku daawan doontaan insha Allah tacaala inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wararka maanta ana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo